waxay ka gaarayaan baa inagana ay go'aana maanta arrinta ku koobaya waxa weeyaan mar labaad iyo mar saddexaad ummadda reer Somaliland aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa arrinta xarigayguna wax fara badan oo waay aragnimo ah iyo wax fara badan oo xogogaalnimo ah bay kordhisay assalaamu calaykum waraxmatullahi aad baa su'aal muhiim u tahay aniga habeenkii la soo xiray gurigayga salaadan ka soo baxay gurigayga habeenimo la igu yimi ma filaynin gurigayga inta ciidan ugu imaanayo gurigayga markii la igu yimi si aan gobonimo ahayn oo dawladnimo ahayn oo dadnimo ahayn baa la dhaqmay wixii inta ka dambeeyay wax damiirkayga dhaawaca wax damiirkayga dadnimadeeda dhaawaca midna ma dareemin ummadda reer Somaliland iyo waliba deegaanada aan ka soo jeedan mid baan u sheegayaa waxaan u sheegayaa aniga qabiil ima xiran aniga qof ahaan nin qabiil xidhay ma yihi isaaqi ma xiran habara wala ima xiran shacab muusar ma xiran xarigaygaas 7 nin oo walba nafxa waa sabab ahayd iyadana meel khayr ah alla dhigi doona waxaan u sheegayaa dadka aan ehelka nahay qabiil nin qabiil u xiran ma yihi nin qabiil u xidhnaa ma yihi nin dareen qabiilahay dariiq qabiil markii hore la dareemayay hadeerna dareemayay inta aan jeelka ku jirayna wanaag iyo sharaf iyo dadnimo wax damiirkayga dhaawacay laba kulmi